يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعباس جنرك عباسي باي صاحبي الأمانتين والي سلام سلام كديب هرت مركور صاحبي وحني له سو نقد وناكسنو سي حماسة صاحبي المدة أسبوع ما دام قد مغني حواد أمانتي وحني رجينا إننا متخبطين أنا صاحبي هذا مقالها سبل الآنكم من مغنى هذا واي اتحان الله اتحان كان سيق روح بدنا يقولوا ما صاحبي أذي كان يسود عيسين وأنا ما سنتهين وحول بنو نيجي رجينا سيدو كل صاحبي أذي كان دريد إلهي أن يفوض ذيو لكن هذا وحني ليه صاحبي الحلقة ما كل راح يس صاحبي تيم بوق اللي مش هذا حلقة أن يقول بس إسف على الأوفا يكون راح يستس لكن صاحبي التيم كلا وحق هلا تيم ويركي تيتديسكا وورت السؤال النفط يقادين أوسي صفور توكب حي من صلابنا ميا مهم كو إجي هي وإجي بس صاحبي العجيباتين لكن وحني شيء إنا نيجي ورقة أمر والبوحة قرالي ذين أفيري تيم ويركي تيتديسكا لكن صاحبي الوأوجه التحنين ويركي تيتديسكا إنه أدو حماس بدين هي معنتي لقي جو سكري حتى لقي جو كريم بقى لكن ولادين بوق مشهد قدام قضاء وايد إحنا أدو كومين سيد ويركي تيتديسكا صاصبوا بلارنو سياس أوجد ولا لهن وقلنا من بوق مشهد مركز كدي بضاوة أذيك عادي متيهين والله واحد صوت هذا وقال هذينا من يجهر دعاية كله اسكسر نقد ولكن مركه هرت حلقة كرة عيسى تيم بوق اللي بشهد كفى إيديستا لكن صاحبي لو حنيجري قلنا حلقة دي هروحها إلى وصل النبي إن مركل إنا إلى مربو نوصل يا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حلقة دي إنه نوبل أبا xalqadii hore marka aragna inuu Yashiro Yagami si xun ay u geeriyoodo sidaas ay taana wiilkiis oo qayaanay wiilkiisna aad u baroortay laakiin ma sheegi karo wiilkaas Makira ma ahaa Light marka sadib Shinigami buugi iska lahaa Ryoko heystay oo isticmaalaya Yashiro Yagami ayaa imaanay buugis naqsanaya waana Shinigami Milo xogtiisa buuga dhan u sheegay oo shuruudaha inay feeg yihiin marka sadib Milo qaraxi xoog badnaa intuu ka badbaadiyo intuu u tagay Niir wuxuu u sheegay in shuruudahaas oo dhan buuga ku qornay feeg ahaayeen oo taasna lagu sharqoole Niir markuu ogaado buugaas ilmuhu gacanta ku dhigayay in uu fasaxay Light Yagami sidoo kale gabadh loo yaqaan Misa labadaas qofna wala qof maanta ilku cadeynaa oo dhahay kiraha koowaad iyo kiraha labaad labadooda waaye Niirna shuruudaas markay feegta markuu cadeeyo waxa uu cadaataba in uu Kira yahay Light Yagami waana maalintii Light ama Kira maahan ku soo ekaan lahayd sheekadiisa oo dhan wallahi Light hali soo galay xalqadana waa xalqadii ugu dambeysay buuga dhimashada ee si fiican u dhigeysada saaxiibayaal Milo markuu arintii Niir u sheegay shuruudaha buug ku qornaa feeg yihiin Niir isla markii wuxuu ka wacay hore Light wuxuu u sheegay buugiina shuruudaha ku qornaa ay sheegayeen shuruudahaas oo feeg ahaayeen waxa aniga soo ogaado waa arintaas maxaa ka jira askata Japan markaas Light isla markii beentiisa bilaaba wuxuu leeyahay Ryoko intaas u fiiriyo wuxuu leeyahay buug shuruudaha ku qornaa shuruudo sax waaye waxaasna qofka ku sheegay waa been Ryoko waa ogtiin shuruudaha been kama sheegi karo soo xataa been ku qoray oo soo meeynis waska aamusa laakiin sidoo baariyaasha Light caawinayeen sidoo kale ahaayeen Yashiro Yagami asxaabtiisa waxay leeyihiin yarka lagu macluumaadka oo ah Light aabiisa qofka aad ugu dhow wuxuu leeyahay waxaan horaa ila u dhahay ka waran oo buuga shuruudaha ku qoran feega ahaayeen maxaa ka jirana sidoo kale Aizawa oo aad u shakiyo oo ha Yashiro Yagami saaxiibkiis wuxuu leeyahay arinta waxba ka jira hadii run ay noqotana arinta elkiis ku soo ugu Light waa run sidoo kale gabadh oo yaqaan Misa wallahi Light waa u dhamaatay Light dhamaantiis dadkiisa asxaabtiisa oo dhan ka shakinooyin wallahi Light Niir hal soo galiyay Aizawa wuxuu leeyahay shuruudahan buug ku qornaa wuu ka shakiyay sidoo kale hadda Niirna isla hadalkii ku hadlooyaa hadii arintaas run ay noqoto waa Light waxa waa dib la'aan ma ahan Light dambiyidiisa dib u soo laabanay Niir wuxuu leeyahay hadda kahor ninka lagu magacaabo Light Yagami soo Kira lagu magacaabo asiga inuu Kira yahay haddana dhigeysta askarta Japan dhamaantiin ninka lagu magacaabo Light Yagami ayaa ah Kira saxda anigana taasni cadeena hadda xataa fahmi weysiin Light wuu naxay dhamaantood way ka argagaxay markay hadalkaas maqleen dhamaantood Light shaki weyn ka qaadeen Light waa laga shakiyay hal soo ku jira Light laakiin Light wuxuu leeyahay ninkaas ay iskaga reebi karaa ninkan ilaa uu ka daran yahay saa iskaga reebi karaa baxan uu bigil rabaahe markaas Light daawad wuxuu ku dhaqmaa wax doqonnimo oo nacasnimo waligeed ka filaynin Light wuxuu sameeyay intuu wasiirka Mareykanka shaqo galiyay Niir intuu wuxuu leeyahay qofka ku hadlay waa Kira xilliga rabna waa ku dili kara taageero badanna waa ku qabaa Mareykanka waxaan ku sheegay inta halisteeda ku umaan waa ina sameeysa taageerayaasha amaha ku qaba oo dhan waa ina ogeysiisa taageerayaasha ninkaas Niir loo yaqaan inuu ka soo horjeedo xukunka Kira hadii taas sameeyay wasiiro naftaada halis galaysa adigana ku dilaa markaas taageerayaasha Kira oo dhan Mareykan joogto uu soo xiro oo Niir cad ugu dhigaa Mareykanka Kira taageerayaashiisa oo dhan dabaq Niir isku maanaya markaas waxay sameynayaan in dabaq ku jajabiyaan laakiin Light wuxuu damacsan yahay qorshe kale Light wuxuu damacsan yahay inuu daroon kacsado markii taageerayaasha meesha buuq ay ka dhaliyaan ee wax walba jajabiyaan markuu Niir damacsan yahay inuu soo baxo in fursadaas Misa ka faa'iideystay in Shinigami uu adeegsato markaas Niir ay aragto magaciisa saxda ee buuga ku qorto waana qorshaha oo damacsan yahay Light laakiin Niir ma yareystay saaxiibiya Niir isla markii to Light ka wuxuu ku leeyahay Light Yagami waxa ay cadeysay in adiga Kira tahay marka aniga naftaada khalqal aan gari kugu cadeey in Kira tahay nafteeda halis gelinayso maahan dambiyaga caadi oo cadeystay in Kira tahay maxaa Kira taageerayaashiisa aan soo aadiinay ana hal qof aan cad ku tilmaamo soo ma inuu Kira yahay waana adiga Light Yagami wax walba ay kala cadaad laakiin samaha marka ka soo baxo ana gacanta kugu dhigaayo wallahi waligay kama filayn Light waxaan kala sameeyay
sameynaya doqonnimada asaa doqonnimada ku dhaqaaqay waayo niir hal qof uu ka shakiyo kira kugu tilmaamay waan Light Yagami asina weerar ugu qaadaba oo wuxuu ahaa taageerayaasha u diraba markaas waxa cadaan inuu Light Yagami oo kira yahay Aizawa kalsoonida u qaba Light marba kasi dambeys way kasi bixuusaba hadda aad ugu shakinooya niir gacanyariisa wuxuu ku leeyahay qofka aniga dagaalka hadda ugu jiro waa kira dadkana wax ay soo adeegsaday asiga waayo laakiin waxaan ku weydiinaa qof walba taageer ha qabo qof walba waxa jeclaado jecelkiis wax tiiri kara ma ogtahay waa lacag ku fardhiya markaas daba korkiis waxa loo soo fardhiya lacag badan oo zaid oo malaayiin ah oo war maxaas waxa uu sugnaa waayna nicmadan waa idaaftay ka waran ayagana taageerayaashiis isku dadar Soomaaliya lacagta ku mashquulayaan markaas ciidamadiis FBI inta soo baxaan dhar madow soo gishtaan ma ka soo baxayaan niirna daawada ciidamadaas ku tirsan yahay asiga qorsoon oo Light wuu guur dareysay niirna gacanta ku dhigi waayay oo wallahi Light maxad doqonimo ku dhaqaaqday niira markaan ka guuleystay Aizawa shakigiisa waa sii ziyaada hadda Light kalsooni inuu ku qababa inta baxo mise guriga ku sugantay sidoo kale qolka Light oo dibbaari far badan ku soo sameeyay Aizawa inta u maad wuxuu ku leeyahay buug waa ka soo waayay waxaana ku qasboonaa Light in labadiina qolkiina soo fiiriyo taasna waajib ugu noqoto waana ka shakiyay Light sidoo kale waxa ogaatay niirna waa wacay kiiska wuxuu ku saabsan yahay garba ku siiyay markaasna daawad waxa arkayna oo dad baadiriyar TV ku sugan in hal u dhimanayaan midka ku xigaba uu dhimanaya waxas mise ma ka dambeeyay maxaa jiro waliyaban yahay xataa qof kasta wuxuu isku tilmaamayo inuu kira yahay war maxaa qaldan xataa barnaamij soo sabeeyo wuxuu taageen waxa u sameeyay Safius Weelo oo war maxaa qaldan ku waayabne Aizawa intuu Light fiiri wuxuu taageen Light intuu fadhiyaa waa qofka wax dilo kir isku sheegaya ani waa wareeray runtii niir wuxuu taageen Light Yagami ayaa kira ninka kirana intuu fadhiya nin kale wax dilooyina kira kale qof isku sheegayo war maxaa qaldan dhamaantood arintaas wax jawaab uma hayaan xataa misada xataa jawaab uma hayo Light si degan oo meesha u fadhiya sidoo kale gabadha misal Light xataa laga shakinayo eelka shakinaya xataa ana ka warqabo maxaa qaldan marka yaa qofkan kir isku sheegayo dhamaantood hadalkan way ka yaabeen laakiin waxaan yaa kala ka dambeeyay daawada qorshahaas leedahay Light Yagami qorshahan Light leemoyo cid kale ma day karto Light wuxuu sameeyay qorshihiisa mise markale milkiilaha buugan iska dhaaftay ee hadda waxba xasuusaninba mise maskiinta markale xasuusta way ilowday Light ma xasuusta sidoo kale buugan dhimashada ma xasuusta waa gabar iska caadi hadda laakiin daawad meesha isla faana loo baahan yahay waxa mise buugan hadda intuu ku maqan yahay Light toogay buugeeda nin ugu dhiibay ninkaasna waa nin kira taageero weyn u ah oo loo yaqaan Mikami waa nin daacad oo taageero weyn u ah kira xukunkiisna aaminsan riyadiisna aaminsan sidaas ogeed ninka Mikami loo yaqaan maadaama kira sida boqor oo kale uu aaminsan yahay wuxuu rabaa inuu wuxuu jecel yahay inuu sameeyo Light ninka si qarsooni ah buuga Shinigami farta uu saaray sidoo kale Shinigami dhiil oo la galay Mikami waa qofka labaad sida misoo kale Light u isticmaalayo oo wallahi Light baqtiya tahay gabadhi maskiinta ee meel ila u soo tagtay ayadana cimrigeeda hadda haaf mooye haaf ka si yar waa xataa muddo yar kadib ina dhibato laga yaabaa Light maxaa doqonsatay qof walba isticmaaliisa maxay tahay aniga runtii daawada Light maskaxdiisa qorshihiisna arko waraba laakiin sidoo dadku u isticmaalay ma yaajibin galinin waana wax doqonnimo ah si xukunkiisa iridiis u rumeeyo oo sameeyo dadku u isticmaalayo oo wallahi Light muxuu qorshadeega subidka hadda ma aanu fariya cid ka shakilaysa ma ahan qorshihiisa wixiisna oo kala socdaan muhiimadeen marka u salaama ninka loo yaqaan Mikami oo Light doorto oo door sidii inuu kiri oo yahay wuxuu diray nimanka loo yaqaan TV-ga soo dayahay kiri wax ka sheegay dhamaantood dhan waa baabiye booskooda wuxuu ku bedelay gabar kiri aad u taageeraysa sidoo kale sidoo mujrimiinta u baabiinay waxna ayda ka heshay gabadhaas waxa loo yaqaan Takata waa gabar wariye ah oo ku taageeraysa kiri mujrimiinta adduunka dhan in laga masaxo laga tirtiran laga cirbtira rabto waxayna leedahay askartu waxay sameynayaan in mujrimiinta xabsi la geliyo muddo ay ku waaraan sidoo kale markii la soo daayna dadka ay dilaan waa wax qalada kiri xukunkiisa ayaa fiican waana waxay ku taageeraysa kiri xukunkiisa sidoo kale Mikami asina u doortay gabadhan daawada markuu Light isha saaro waa gabar iyo qaanaba oo Light markuu jaamacada dhiganay xiriir kaga dhaxeeyay Light markuu arig ka saarto hore fikirda uu soo dhacdo wuxuu leeyahay gabadhan waa isticmaali karaa ayada xataa maadaama hore ay taqaan sidoo kale xiriir iga dhaxeeyay oo jecleen waxa u sheegi karaa kiri hada u sheegay xataa xukunkiisa jeceshahay Mikami ayadana si toos ah u xiriiri karaa ma Janiska misdafsiin kari oo Light mujrimiinta ay baabiino sameeyay tahay adaaba mujrim noqdaba dadka ku taageeraya xukunka kugu taageeraya ay harta in isticmaasho si qalada u isticmaasho qalbiyadooduna waa qayaanaysaa waa Light wuxuu doqonnimada ku dhaqmaayo muhiimadeen marka u salaamana Light fikradaas uu adeegsanaa wuxuu leeyahay aniga gabadhan waxa waa was aqaanay jaamacada asal dhiganayna xog walba oo kiri ku saabsan hadaa weydii in ila wadaagta laga yaaba marka ana soo weydiinay xog walba ana ka soo ogaanayo ayadana arintaas wax ka bedeli karto waayo way ogtaa fikrada kiri dhan askarta in ka soo horjeedaan ayda wali Light fikradiis kuma karsoon wuxuu leeyahay saas haday tahay falaaqsan cadan oo furay marka ayada la hadlaysid Light ma bakal jecel wuxuu taagan yahay dib kuma qabo caadi waaye markaas kadib Light Takata wala kulma laakiisa oo daawadu way isla hadlooyin laakiin kala qoraaladu wuxuu sharxay inuu kasi kiri oo yahay laakiin daawad markuu la hadlooyo wuxuu dhigayo arinta kiri inuu wax ka weydiinayo oo Takata way ku faahantay hawshana way la sii wadaa markaas wuxuu u sheegay inuu Takata oo yahay kiri sidoo kale wuxuu u sheegay inuu wali jecel yahay oo jecelkeeda uu aqbali doono oo wallahi Light qof walba inuu isticmaalo rabaa Light doo ilka arko faa'iido ka arka asiga ku adeegsan karo ku isticmaala wuxuu rabona ka sameysana markaas kadib Light intuu soo laabto markaas waxa soo wacay niirna wuxuu leeyahay aniga Jabaana imaanay Jabaana imaanay dhulka kira kuugu imaanay haddana xiliga waxa la taagan yahay waxaan dhan soo afjar leeyno gacanta lagu dhigi lahaa isdiyaari kira oo Light wuu argagax wuxuu sameeyay garamaayo niirna waa imaaday Jabaan markaas Light wuxuu leeyahay waaba sida la rabo dhulkayga ugu maatamaho ana shaqadaada aqaan markaana mahan ana ku soo afjarayo niir markaas daawada waxa bilaabay dagaalkii labaad maskaxeedka yaa guuleysanay niira mase Light waa arki doonaa markan kira ma guuleysanayo waana wareega labaad
wareega koowaad waxa guuleystay ogtiin oo in laga guuleystay Kira markaas kadib daawada Light iyo Takata way kulmayeen wuxuuna ku leeyahay beddelka Mikami waa inaa wax walba fulisaa warqadaana qayb kamid ah kaasina waxa rabta go'aanka ku qaado qofka rabtan dil waxaana ka wada go'aankaada qaadanaya qofka halis kugu hay iska xili iska reeb Shinigami-na dhil la gal indha Shinigami-na adeegso Takata ay ma diidi kartay daacad weyn u tahay Light Yagami Neerna daawada Japan wuu imaaday caawiis wuxuu ku leeyahay gabadhan Takata loo yaqaan Kira zaayida u taageertaa laakiin ayda wax ma diloosay qof kale ku caawinayo adilooyo Kirana beddelkiisa qof kale wax dilooyo laakiin Takata qofkaas ay caawinayso laakiin yoo noqon kara Neer si fiican u fikira maskaxdiisa aan caadi inta u fikiro hal mar soo saara Neer war Neer maxaa way balaayaatahay wuxuu leeyahay qofkan gabadha hadalada ka soo baxay dhan qofkaas ku shubayo qofkaasna way wada hadlaan mar walbana way wada kulmaan si fiican way isku wada fiican yihiin qofkaasna cid kale ma noqon karo waxa waa Mikami ninka Mikami loo yaqaan ayda mar walba Takata way wada kulmaan nin kale noqon kara ninka Kira oo adeegsanayo war cunugan daawada caadi ma ahan bay caadi u soo saaree il farciisa waa anama ka shakinayo markaas Neer wuxuu leeyahay ninka meel walba laga dalbgalayo nin fahmin ish la ku haya markaas Neer ninka Mikami dabdhigana wuxuuna arkaa Mikami bas ay saarihiin Mikami wuxuu arkaa nin naag foodeynaya isla markaas mobile screenshot u qaadanaya ninkan hore ku dhimana wallahi waa la fahmay waa ninkan waa Mikami Neer wuu fahmay ninka Kira oo adeegsanayo waa ninkan waa hal dabgalo leeyahay isla markaas waa la dabgalaa Mikami markaasna buuga meel ku soo xirtabo inta ninka uu dabgalo screenshot buuga soo qaadana waana ka soo tagaa Neer wuxuu rabaa inuu fahmin buug oo meeshiisa oo ka qaadin ciyaarta Kira maahane ku soo dhamaan rabtaa runtii markaas daawada Neer markuu Mikami ogaado inuu ninka Kira u shaqeynayo u yahay isla markaa Light hore ka waca wuxuu leeyahay Light Yagami arinta Kira maahana ku soo afjarayna ana meel inaan ku kulnaan rabnaa meeshaas waqti cayiman ah ku kulmayna ku qabanaa meeshaas waa ina imaata waana ku qasban tahay dhamaantiin Light Yagami kooxdiisa waxaan cadeynaa ninkan loo yaqaan Light Yagami inuu Kira yahay anaan cadeynaa in meesha dhamaantiin isku imaada sidoo kale waxaan ku ogeysiina buugaada xataa ku soo dar laakiin muhiimadu waxa waa Aizawa inuu gacanta ku haya sidaas uu ogow markaas kadib gabadhii warbaahinta Kira u ahayd oo loo yaqaan Takata ahamar la afduubana waxaana afduubana Minna uu hanjaba laakiin ayda maxay sameeyeen akhbaarta Takata in la afduubto meel walba ku faafiya xataa Light xataa ogaana laakiin ayda maxay sameeyeen intii warqadaha qaar kamid ah Light inta la soo baxday ilaa Shinigami intii adeegtay hamar Minna sidaas ku dhimana Minna naftaha marka baxayso markaas gudaheeda Takata meesha ku suganta wala ogaana Light kooxdiisa waxay rabaan inay soo badbaadiyaan laakiin ayda la sii qarsoon inta soo wacdo waxay leedahay Light badbaadi an waxa ilaa sameey dhamaantood waa sameey nafteeda halis ku jirta ay badbaadi hadalkaaga waa yeelay in Shinigami waa adeegsaday Minna waa dil laakiin an nafteeda halis ku jirta hadii badbaadi Light hadda baawur gudihiisa ku dhex suganahay ee gaclihay waa ku baryaa iga soo gaar laakiin Light ma waji gabadh inuu nafteeda dilo rawaaba muxuu sameeyay saacada buto kamid inta taabto warqadii tolo soo baxo gabadh magaceeda ku qoraa danto kala hawo gaaray gabadh inuu woo dilay Kira waji ma lahan qof walba dantooro ma ku gaara sidaan meel cilo ugu tagaa gabadh warqadan wuxuu qoraa in ay nafsadeeda isgubto Takatana maskiinta si xanuun badan oo argagaxa ay u dhamanay wallahi Light naxariis ma lihid markaas kadib Neer Allah soo wacay markaasna wuxuu ku leeyahay xiligeen waqtigeen hayloobin maalintina waa la taagan yahay iimaaw markaas kadib daawada muhiimadii ugu muhiimneed hadda imaanay kooxda Light iyo kooxda Neer ugu dambeeyay dagaalkii maskaxda intaas muddo laga ciyaaray xiligi la soo afjar la taagan yahay Neerna intaas muddo fadhiya mana hadlooyane saacada badan kooxda Light ilaa hadda hor taagan yahay Neer ma hadlooyo qinaac u gashan yahay Light wuxuu leeyahay intaas muddo ay bootinaysa masaad ma ahayd wajiga qinaac waxay soo gashanayeen inta ay soo fadhiisanayeen ma hadashi ma waxay dhahdeen Neer markaas maaska iska qaada waan u dhal cadeena Light wuxuu leeyahay kulunku waa kulun waxa adiga rabtid maxay tahay qof kala sugoosaan waxa sugoos maxay tahay Neer wuxuu leeyahay Light Yagami isku sug wax weyn sugoona ahaa qof weyn muhiim sugoona ana subis adiga wax ku dhici doon indhaha ku arki doonee dambaariyaasha Light socod maxay leeyihiin maxaa qofka sugoosay qofka iimaanay maxay tahay misadu muxuu leeyahay qofka sugoosay maxay tahay Neer anigu dhamaantiin waa joogana waa maxay qofka sugoosay Neer wuxuu leeyahay horta markoo istijiya qofka sugoon waa qof waxaan dhan ku soo afjari lahayn waa qofka Kira u shaqeeyo waana qofka Kira adeegsanaya dhamaantiin buugiisa soo baxso magaciisa ku wada qoraa laakiin hal qof oo kareeba qofkaas waa qofka Kira saxda ah dhamaantiin magaciisa buugiisa qoro qofkaas bis oo kaliya kareeba qofkaas waa Kira saxda ah dhamaantiin soo noo dilo Kira sidaas soo sameeyna qorshaha soo noo dagaa aniguna gacanta Kira ku dhimanayna wardan baariyaasha dhamaantood way argagaxay wayna cabsoodeen maxaa leedahay waxa leedahay mid hadda imaana buug dhimashada noo adeegsanay dhamaantiin magaciisa ku qoraa miya aniguna waa aamusnayna miya maxaa kugu dhacday Neer wuxuu leeyahay way dhacay isdajiya wuxuu rab ha sameeyay buugan uu qoro door laakiin saas ka qoraad iska dhaafay waxa dhacay aad arki doontiin war Neer maxaa damcad tahay anigu ma sabraysan uu qarabtaan masaanuka halisna gal rabtaan argagax ma wadid maxay tahay intee kalsoonidan ka keentay waa ogtahay inaad dhibadii sida maxaa waayna waxa hadhow gadaas laga qiyaamo ka waran markaasna daawada qofka ka hadleen wuu imaado Light geeskiisa fiiriyo Mikami waa in Shinigami adeegsanaya intuu dhamaantood Shinigami adeegsado dhamaantood fiiriyo hamar buugu ku bowsiyo ku qorqoraa si bowsiiso si sariic waliba hal kamareba Neer oo ka bilaabo mid ku xiga magac buugu ku qoraya war waa u dhamaatay dhamaantooda adna markii Mikami Light inuu kooxiisa dhehlo raaco wuxuu dareemaa Light magaciisa meesha ku qornay wuxuu dareemaa inuu Light uu yahay mudaniisa markaas daawa Mikami Light kooxiisa buugu ku qoraa Aizawa misuda dhamaantood ku qoraa buugu dhimashada wuxuuna u qoraa daawada si waali ah argagax isku darsoomo indhaha u taagayo farxad weyn ka haysa Mikami dambaariyaasha dhamaantood way ka argagaxisoo buugu qoraay intuu la dinay anigu ka dilinay leeyahay laakiin Neer wuxuu leeyahay ka jooji waxa sameey kartid malaha mana dili kartid wuxuu raba sameeyay ka daa war Neer kalsoonida inta ka keentay intuu hadii dilin ma hada dilidin ma jaanis ku haysatiin Neer wuxuu leeyahay meeshin ka dhaqaaq wax ma ku sameey kartid wuxuu raba sameeyay ma
dhimanayno man dhimanaynin dhahay Masud wuxuu leeyahay maxaa nugu caday kartaa anigu ku dhimanaynin noo sheeg maxaa ku nugu caday kartaa niir wuxuu leeyahay ninkan u jeedin Mikami loo yaqaan anigu xog badan ka heena ninka waa kira qofku adeegsanaya buugna markuu farta ku qorqorayn aad u yareeyaa si oo maalinta halka maalin hamru afjaro yani wuxuu rabaa maalinta markuu ku qorqoray inta soo qof inuu hal mar ku qoro marka farta aad u yareeyna laakiin anigu waa ka gaarna markaas buuguna waa u badalna buug kala ugu badalna safartiisna waa ku dhaafna si anigu uu shaqeeynin marka aqyaan isdaji yani hadda buuga qofka ku qoray buug iska caadi waa isdaji waxba ni u dhacaayo Mikami markaas halka markay wadeen buqaraado dhan wada dhameystaba si waaliyo u dawaadagooya niir wuxuu leeyahay hadda ninka 40 second noo qabanaa 40 second markuu noo qabto anigu gacanta ku dhigayna markaasna qofka ka maqan buuga asaar ay qofkaas kira saxada qofkaasna gacanta ku dhigayna waana qofka intaas muddo arabnay wallahi qorshiisa meesha ma ku dhamaatay laakiin daawad layd ma dhamaana fikradiisa ma dhamaanahay daawaday wuxuu u dhol cadeena si argagax oo cabsi ee waliba layd daawad wuxuu la soo baxay wajigiisa argagaxay dhol cadiintiisa cabsida wuxuu leeyahay niir cunugiyo waa ku jiif waliga inay el gaareen saa ugu jiifle buug ina kala bedelaysid saa u ogayle cunugiyo ina taas sameynaysid anigana ka guuleystay war hadalkaas muxuu layd ka wada layd sidoo u guuleystay maxaa guuleysnimada oo sheegay layd mar walba saamo qorshiisa u weyntahay waxaan oo dhan daawad hadaa ku dhaho qorshaha layd ee in meeshan la imaaday waxaan oo dhan qorshiisa ee Allah layd muxuu halis badan yahay layd muxuu sameeyay buuga oo niir kala bedela buuga saxda dhimashada ma ahanba layd wuu ku jiif wuuna ogaa inuu Mikami kor ka fiirinayaan ee dabgalooyin waxa soo dhan Mikami oo sameynay layda ku amray inuu sameeyo in si zaid u shakiyaan laakiin daawad waxa la yaabanahay sidee qorshaha oo sameynay layda muxuu ka damacsanaa hadaa flashback-ina dib ugu laab Mikami muxuu stanik mujirka ma goosawiraay muxuu ugu sawiraayay buug dhimasho ma ku qoro asiga Mikami saas inuu sameeyo kama damacsanay ee layda ku amray suuradaasna wuxuu u dhicaysa gabadh oo yaqaan Takata gabadh oo yaqaan waa ogtay layda isticmaalay wixina haysta warqadaha buuga dhimashada sidaas ogeed mujirka tariin ku sugan ay ayagana ilaalinayeen wuxuu u maleeyay inuu Mikami dilo Mikami midin Takata dishay Mikami wuxuu sameeyay mobilka ninka sawir uu qaada Takata u diray Takata sidaas ay ku dishay waxa soo dhan layd wuxuu la dabacsanay inuu u maleeyay Mikami inuu buuga saxda dhimashada inuu asiga haysto Mikami markaas wuxuu haysto warqad kale oo buuga dhimashada fake ah ayagana buug kale warqad kale ugu bedelaan oo fake ah markaas ogeed waxa labada warqad wax ka bag jirinba buuga dhimashada saxda intuu ku maqnaa layda meel ku qoriyo buuga dhimashada saxda gacanta ku haayeen haddana Mikami warqada buuga dhimashada ku qorooyo magacyadooda hadda buuga lagu qorooyo waa buuga dhimashada saxda war waa hoogay waa u dhamaatay wallahi waa ku xumahay layd maskax sheedaa ma qabtid warniyo IQ ma ahan kan tan maskax lama dhigi karo tan maskaxdeena way ka weyn tahay laydna si caadi ah mar walba u guuleystaa layd dhol cadiintiisa argagax badan too dhol cadeey wuxuu sugay 40 second inta ka dhamaanayso wuxuu og yahay buuga dhimashada magacyada lagu qoray kalsoonidiisa Mikami inta uu waco ku leeyahay Mikami ma iga dhameysay hooshan ma iga dhameysay saadi kugu kalsoon hale soo bax 40 second way dhamaatay waxba ha ka walwalin Mikami wuxuu leeyahay ha way dhamaatay 40 second markaas layd wuxuu leeyahay soo bax waxba ha ka walwalin dhamaantood waa mid socda Mikami irid inta furo wuxuu ku leeyahay boqorkeegi iyo xaakimkeegi waa ikan markaas Mikami saacadiisa soo bax wuxuu leeyahay 40 second way dhamaatay 40 second way dhamaatay oo dhamaatay dhamaantooda war maxaa dhacay hadda arinta dhan kira ma guuleysay saamay dhamaantood u wada dhimanayaan laydna markaas wuxuu sameeynaa daawada wixii ugu argagax badneed hortooda marka dhaha wuxuu leeyahay aniga mar kale waan guuleystay waxaan ku guuleystay maskaxdeeda aan caadi ahayn anigu way guuleystaa saxda ah markaas kadib daawada waxa dhacay wax la yaab ah 40 second way dhamaatay dhamaantooda way wada nool yihiin hal qof dhimaninba war maxaa qaldan maxaa waa buug dhimashada dhamaantood waa lagu qoray may dhintaan layd wuu argagaxa Mikami wuxuu leeyahay maxaa jira mudan maxaa jiro aniga dhamaantood buug dhimashada waa ku samee dhintaan waa la yaabanahay 40 second way dhaafta hal daqiiqo maroo saame dhamaantood way wada nool yihiin war maxaa qaldan layd arintan wax jawaab uma hayo waa markii uu ureysa fikradiisa dhan kala daadanayaan oo asidan argagaxay waa markii uu ureysa oo yaabayo arintan wax jawaab uma hayo wuxuu leeyahay niir maxaa sameysay Mikami niijab intuu mudinis ka dareemay wuxuu leeyahay waxa dhan asameed aad waa sameeyay maxay li dhimi laayiin ii sheeg niirna wuxuu leeyahay Mikami gacanta lagu dhigo Mikami gacan duba lagu qabanaa Mikami buuga dhimashada waa laga soo qaadaa niirna waa fiirna waxaan la fahmaa hal magac inuu ka maqan yahay magacaasna waa Laydigami dhamaantood labada kooxood bay ku qorayeen laakiin hal qof ka maqan Laydigami bis lee waaye waana cadaatay u dambeeyay niir wuu soo saaray inuu yahay Laydigami kiraha saxda ah wallahi ugu dambeeyay layd waa guul dareystay macquul ma amisdeen waliga layda guul dareysanayo laakiin daawad layd wali uu argagaxay wuxuu leeyahay ninka hadal ha ka aaminin anoo ishir qool raba asiga waa kiraha layd beentiisa inahay nimadiisu wuu bilaabay oo dadka ku nabaayo niir wuxuu leeyahay mani sheegan hal qof ma dhimanayo mani dhihino layd wuxuu leeyahay maxaa qaldan Mikami adima ay qayaantan ani fikradeed way saxsaneede maya kira saasa ku fikirina asxaabtaada kuma qayaana mar walba adaa qayaantid kira Mikami waa qof daacad ku yahay anagu buuga pageskiis bis ma bedelino ee buuga dhana ka bedelni buuga saxdana maanta niir shafkiisa ku jirtay asiga gacantiisa ku hayay laakiin daawada goormo niir bedel layda ugu hormarabe goormo bedelay niir wuxuu leeyahay ma xasuustay markay Takata gabadha la afduubanayo oo akhbaarta meel walba ku faafisay markaasna arinta Mikami way soo gaartay wuxuu rabay gabadh inuu ugu hormaro intuu layd asigu u hormaray wuxuu rabay intuu mudanihiisa oo dilay Takata inuu asiga inuu gacantiisa ku dilaba laakiin layd maalintaas Mikami wuxuu ku waa shaqadiisa caadi inuu qabsanayo laakiin Mikami maalintaas waa dabgalay niir ciidamiisa dabgalay asina mar bangigu aada buuguna soo dhigta buug inuu soo baxsado rabay waana ka soo baxay ayagana Mikami way dabgalay waxina arkay mar walba bangiga uu ku aada Mikami buugiisa ma soo dhigto buug saxdan ma soo yaalay Mikami mar walba bangiga dhigta laakiin slide ma ogeyn ninka dabdhiga waa arkay oo dabgalo waana ka soo qaada buug saxda dhimashada ayagana gabadh markay qabtay waxay xaqiiqsadeen gabadha Takata magaceeda meesha ku qoran yahay laakiin slide
Mikami way iskhilaafeen Layda uu hormar gabadha dilay Layda gabadhaas markuu dilay sharqoqas waa loo talagalay Mila naftiisa ku haliga u ogolaaday inuu gabadhaas afduubto min wuu ogaa inuu taas ku dhimanayo in Shinigami loo adeegsan karo laakiin waxa soo dhan wuxuu u sameeyay Niir in awoodiisa garab ku siiyo oo Kira gacanta ku dhiga oo wallahi Mila caadi maaha Niir garab uu siinay ka waran Niirna sidaas buuga uu kala bedeleen buuga saxda Niir saas gacanta ugu soo dhigay Mikamina buuga isticmaalay maanta dhan wuxuu ahaa buug feega oo ayaga soo habeeyay soo naqshadeen Niir wuxuu Light ku leeyahay anigu El wanaga maskax badan yahay markii labadii nool fiiriyo laakiin aniga Mila marka isbahaysan maskaxdeen waa ka awood badan karna maskaxda El waxaana awood maskaxda El oo kale inay kaga guuleysano Kira waa guul dareysatay markaasna daawada Light arintaas ma ko maqal wuxuu qosl argagax ka cabsoonaysidba Soda. 僕がキラだ。 Light shariirnimo inta uu qoslo wuxuu u cadeeyay inuu yahay asiga Kira Kira saxda intaas muddo mujrimiinta baabiinay sidoo kale El dilay waa asiga Kira aniga sidoo kale Kira leelay uu magacaabo waxa lagu magacaabo xaakimka adduunka mujrimiinta oo dhan adduunka ka baabiinayo wadadana waxa lii doorta maalintii buugan dhimashada gacanta ku dhigay cid kale ma sameey karta aniga ahayn adiga askartiin waxa taqaantii mujriba oo dambi geesto waxa u baahantiin cabsi leegaysiin mujrimkii dilaaga ahayo dadka dilaaya mujrimkii caruurta xadaayo wax walba ka sameysanayo mujrimkii dadka jidka ugu fakeenayna sidoo kale mujrimkii kufsiga geysanaya dhammaantood waxaad taqaantiin oo kaliya in cabsi la gelisiin waana wax adiga u yeesheen wax xirba sameynayaan adiga u yeesheen arintan laakiin xilliga la taagayaan dadka hadda waxay jeclaadeen xukun Kira mooye waxaan cid kale badbaadin karto ma jirto anigu waa qofka sameey karo oo kaliya adduun aan mujrim lahayn oo dad masaakiin oo daacada ku nool yihiin horteeda iga hor wareega markaasna wuxuu iska dayaa saacadii tobta ka taabtay magac inuu ku qoro Aizawa wuxuu leeyahay saacada gacanta warqad ugu jirto wuxuu rabaa magac Niir inuu ku qoro markaasna Misuda ka gaaray gacanta xabad ugu dhufanaayo Light wuu dhibuxay wuxuu leeyahay Misuda maalinga xabad gacan ugu dhufanay doqoyahow anoo ka sareeyo mudanahaaga ahaa Misuda wuxuu leeyahay weligay Light waxaan kama filayna aabbahaag wuu geeriyooday laakiin hadoo maqlo wiilkiisa Kira ka waran aabbahaag daacado ah Kira aad u necbaa laakiin hadda macquul ma ahayna wiilkiisa Kira oo noqdo markaasna daawada Light abistu ku jajayso wuxuu leeyahay yaa ka hadlay Shinigami ninka cadaalad aamisana Misuda dadka asigoo kale aabbaheega cadaalad aaminsan weligood cadaalad ma helaan saasayna ku dhintaan anigana marba sida aabbaheega kale inaan ku dhinto markaasna marka dhiig inuu gacdiis ku qororaba laakiin Misuda kama yeelay oo xabadu Light ku shaqaa oo markan Light si dhab u guul dareystay daawadayaal wuu dhimaraba Mikami daawad sidoo kale asiga xataa madiinihiisa saqaab daradan u dhimanay intuu adkeysan waayo gacantiisa isku dilaa Light markaas daawada caawinta weydiisto wuxuu leeyahay mise inta joogtaa aawa takaata inta jirtiin caawiya iga soo gaara gabdhiyo ku dareysay jiro sida uu galay aamin oo wada caawitaan weydiisanayo ka waran wallahi mise miskiinta ilooba inta xiligan ku maqan tahay markaas Light intuu cararo baxsana intuu orto daawada oo orto inta karaankiisa Light markaas oo Light gabgabihiisa wala taagan yahay Light wuxuu saxsan noloshiisa hore sida ahayd wuxuu leeyahay nolosheeda hore dib hadii cillah waa jeclaan lahaay waxaana agtiisa maray noloshiisa hore oo ahaa Light Yagami laakiin hadda wuxuu noqday Kira si xun uu dhimanayaan markaasna daawada Ryog intuu jira xiligan ataagantiin Ryog meel eero fadhiyo waxaan u meelka fiirinayo wuxuu leeyahay Light hore kuugu sheegay maalinta aad guul dareysatid aad dhimanaysa aniga waa qofka buuga magaca ku qoraayo waana waajib iga saaran aad adeegsanaysa buuga Shinigami laakiin ma xasuusta eriga ku dhahay hadii buug dhimashada aad isticmaasay aanay dhimatid ma noqonaysid sida dadka kale meesha u dhimanaya ma aadaysid adiga Shinigami aa noqonay waxaana aadi caalamka Shinigami sida anko kale xabsi u noqonay Light waqtiga kula qaatay waqti caadi inuu ahaa xiisan wax igaliyo waa adiga Light waa ku salaama markaasna Ryog buug magaciisa ku qor Light oo wadnaha hamar garacmay Lightna sidaas oo ku dhintay Light wuu dhintay daawada laakiin waxa ku xumahay sida qaab darno u dhimanayo laakiin qofka dhimashiisa ku xumaanayo waa Light Kira ma ahan Light hadafkiisa wuxuu ahaa adduunka mujrimiinta inuu ka baabi'iyo laakiin ugu dambeeyay asiga wuxuu dhintay sida mujrim oo kale hortiisa waxa soo muuqana oo saaxiibkiisa El oo hortaagan Lightna sidaas oo ku dhimanaa Lightna ma ku geeriyoonayo mise meel dheer ay joogtaa oo tireen ay saaran tahay aydan wax kama xasuusta Light qisidiisa laakiin maskiinta mise sidoo kale ayda xataa way dhimanay oo waqtigeedu aad u yar yahay oo wallahi qisada maxay aad u xanuun badan tahay runtii daawada qisadan oo kale weligeena ma soo marayso waa masterpiece waa caadi ah qisadan qoraaga si loo qoray waana ku xumaa sida u dhamaato waayo bilaaw xamaasadan ku soo galnay waana rabnay mujrimiinta inuu Light baabiina ina aragno laakiin dadka masaakiinta asxaabtiisa inuu baabiina marab ina aragno daawada buuga dhimashada iyo waxaan oo dhan waa qiyaal laakiin meesha duruuca ku jirto faa'iido ku jirto horta saaxiib yahay qof walba dambi gal muxuu mudan yahay in dambigiisa la mariyo laakiin qofka dil geeso waxa mudan yahay in dil loo geesto waa sida sharciga sheegay oo Ilaahay noo baneeyay micnaheedu ma aha qof walba dambi geesanayo oo waxa leenayo micnaheedu ma aha in dil lagu soo koobo oo dhamaantood la dilo ma ahan qof walba wuxuu geesto in xukunkiisa la mariyo si dadka kale cibra qaasho u noqoto laakiin taas micnaheedu ma aha sida Light oo kala oo qof walba la dilayo dambi geesto ma ay sidaas oo kala ma ahan dilka waxaan badan qofka wax dila laakiin qofka dambi geesto waxaan badan dambigaas oo kala in loo geeyo sidoo kale daawada faa'iidada sheekadan ku jirto waa ina beenta marba ee badata meel halis ku geynay sida Soomaalida ay dhahan beentaada badan runtaada meel marisaa waana sida Light ku dhacdo oo maanta beentiis meeshan keentay sidoo kale daawada qof walba aqal badan maskax badan hadii laga badbadiyo in meel halis oo aadayo sidoo kale qofka
dhimashadan go'aan ka gaari kara oo kaliya waa rabbigeena ee bilaadan ma ahan waayo si walba ku dhimata qof gacantiisa ku dhimata qadarta Allah ku dhimata mooyee ee bilaadan kuma dilin sheekadan iyo qisadan faa'iidooyinkeeda aad u fara badan yahay saaxiibayaal waa mahadsantihiin inta la daawatay dhamaantiin saaxiibayaal waa mahadsantihiin qisadan ma ahan inuu soo dhamaatay waana ku xumahay in qisada macaanta badan naga dhamaato dadkii team book dhimashada aad u jeclaa saaxiibayaal waa nigu xumahay in qisada naga dhamaato saaxiibayaal laakiin qisooyin fara badan jiro aan bilaabi doono weelkii Tetris-kana mar dhow bilaab rabnaa si soforkiisa aad u maciya saaxiibayaal waana daawin kartiin wixii cusub oo gadaan naga imaanay sidoo kale ina wadayna dilaaga shahaadinta wax walba waxa waaye arki doontiin insha Allah waa mahadsantihiin saaxiibayaal wax walba ku mahadsantihiin saaxiibayaal magacaygu Cabbaas Janaalka Cabbaas Timbay nabadgeliyo iyo buuga dhimashada